mudaharaadyo ayaa ka qarxay magaalooyin ka mid ah Mareykanka kadib markii dilkii George Floyd oo ahaa nin madow oo aan hubaysnayn oo si arxan daro ah uu dilay sarkaal cadaan ah oo jooga Minneapolis, Minnesota. Derek Chauvin wuxuu ka mid yahay 4 askari oo shaqada looga eriyay sabab la xiriirta dhimashadii Mr. Floyd oo isniintii geeriyooday isagoo ku jira gacanta booliska. Mr. Chauvin ayaa lagu soo oogay dacwad dil ah. Wariyaha CNN oo Minneapolis uga soo waramayay oo la xiray xilli ay mudaharaadyo looga soo horjeeday dilka loo geystay ninka madowga ah ayaa xabsiga loo taxaabay. Umar Jimenez ayaa gacmaha laga jeebeeyay isagoo subaxa hore ee Jimcaha tabin toos ah ku jira. waxaa sidoo kale la xiray sawir qaade iyo soo saare la socday iyada oo xarigiisa loo saweeyay inuu diiday amarka booliiska ay siiyeen ee ahaa inuu meesha ka dhaqaaqo. ciidanka ilaalada qaranka ee Minnesota ayaa tagay magaalada Minneapolis, St. Paul iyo nawaaxigeeda. Minneapolis ayaa sidoo kale lagu soo rogay bandowga asbuuca. hogaamiyaasha bulshada iyo dadka deegaanka ayaa dalbanaya xariga 3 sarkaal oo kale oo qayb ka ahaa dilka ninka madowga ah.